James Comey ayaa lagu wadaa inuu maanta hortago guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka wakiilada Mareykanka kadib muddo bilooyin ah oo uu ka meermeerayay codsi ay guddigani u soo direen in uu ku hor yimaado. Guddigan ayaa bishii hore Comey u diray warqad ay siisay maxkamadda oo ay ugu dalbanayaan inuu ku hor yimaado guddiga si su'aalo looga weydiiyo baaritaanka ku socda madaxweyne Trump ee ku saabsan xiriirka la sheegay inuu dhex maray ololihiisii doorashada iyo dowladda Ruushka. Waxaa sidoo kale wax laga weydiin doonaa iimayladii Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Comey ayaa ku dooday in sababta kaliya ee uu ku aqbalayo inuu ku hortago guddigaasi ay tahay in fadhiga lagu wareysanayo uu noqdo mid ay dadka oo dhan arki karaan, laakiin waxaa la sheegay inuu aqbalay in fadhiga uu noqdo mid ay albaabadu u xiran yihiin kadib markii loo ballan qaaday in dadweynaha loo soo bandhigi doono su'aalaha iyo jawaabaha kulanka muddo 24 saacadood kadib. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Nauert uu magacaabo safiirka Mareykanka ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa, waxaana sidaas ku soo waramaya qaar ka mid ah wakaaladaha wararka. Trump ayaa la filayaa inuu magacaabista sameeyo waqti dambe oo maanta ah. Nauert ayaa ku biirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka kadib muddo ay ka howlgalaysay telefishinka Fox News, halkaas oo sida ay taariikh nololeedkeeda lagu sheegay ay soo tabisay dhacdooyin caalami iyo weliba kuwa gudaha, xasarado kala duwan, islamarkaana ay sida oo kale waraysiyo la yeelatay siyaasiyiin iyo weliba saraakiil militari oo darajadoodu ay sarayso. waxaana haddii la magacaabo islamarkaana ay aqbashay iyadu jagadan suurtagal ah in ay waajahdo su'aalo adag xilliga ay hortagto aqalka sanadka marka la ansixinayo amaba loo meel marinayo jagadan, su'aalahaasi oo ku saabsan khibraddeeda dhanka diblomaasiyadda iyo weliba siyaasadda. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayay waa VOA. haatan kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka. waxaa magaalada Boorama kusoo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. mawduucan ku soo qaadan doonaa maanta wuxuu noqon doonaa dhaqankii guurka iyo martisoorkii Soomaalida. waxaana barnaamijka maanta inoogu martay Caaqil Ibraahim Aw Maxamed Riiraash oo kamid ah cuqaasha gobolka Awdal. Caaqil Ibraahim Aw Maxamed Riiraash ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka sooyaalka dhaqanka. bal waxaad nooga warantaa guurkii hore ee Soomaalida iyo sidoo dhaqanku ahaan jiray. waad mahadsantahay. guurkii hore iyo dhaqankii hore markaan ka waramo wuxuu ahaa wax muhiim ah, wax gaari kara jirin buu ahaa. gabadha horta waa la dooni jiray oo waxa la oran jiray hebel bay u doonan tahay baa la oran jiray, odayaal baa isa siin jiray. marka odayaashii markay loo soo diyaar galoobo waxa waa la xoolo soormi jiray, xoolaha la soormi jiray. waxa yaradka la yiraahdo yaa lagu wada hadli jiray. yaradkaasi laba nooc buu ahaa, mid jil baa la oran jiray, midna yarad baa la oran jiray. jisha odayga ina tadhalay uun baa iska lahaa, xooluhu intay doonaan ha ahaadaane. yaradkana inanka ayaa raaci jiray. saddex baa marka la yabdhayo ee inankii xoolihii la siinaya. jishii abtigeedii iyo adeerkeedii unbaa laba neef ku lahaa, odayga iska qaadan jiray intay doonta ha ahaatee. yaradka markay noqoto saddex nuuc buu ahaa, xeer yabadh iyo xaraga yabadh iyo xumaan yabadh buu ahaa. xeer yabadh marka la leeyahay 20 haddii ina tahay 20 laga bixiyo xeer yabadh 10 odayga la hadhayay 10 ina ku siinay. xaraga yabadh markay noqoto 12 buu ina ka siinayay, isna 8 buu la hadhayay, isna 8 buu la hadhayay, 12 uu siinayay inaka. xumaan yabadh markay noqoto 12 buu odaygu qaadanayo ina ka 8 buu siin jiro, xumaan yabadh baa la oran jiray. taasi markay dhacdo inta tahay haddana raalli baa lagu wada haayo, sidiina qaal laga yeelan buu raalli ku ahaa, laakiin odayga waa la xaman jiray. halkaa kolkay joogto waxaan ku darayaa inatu markay dhimato, hadday inatu dhimato oo ninka ka dhimato, haddii ay joogto inatii la habarahay xigsiin baa la oranayay, waa la xigsiinayo waxa la bixin jiray 6 neef. haddii inataa laga waayo, halkaa inatii la bahayd la waayo, inatay isku oday yihiin baa
يا لو دوني جيري سيديد باي هاي حكمة باي هاي إن تينا تلابار هاي ولا تيلا أبا هاي نوا سيديد إن ندم مركيتنا لبيه تبان لبحيج وحكسين تمركيتها سداسا dhaqamadu ahaayeen gabar baa waxay yaa raagtay oo iyadoo doonan bay raagtay waraa loogu iman waayay aragii bay meel buura geysay inamadii iyaguna geel wadaa u tagay waajiyuun waxay wadaa neefriyaay qashay biyana ma jiraan waxay tidhi nimayo waan raagno waa rag la'aan waajiyo waa idala'aan waajibayo waa biyalaanaya inaan saman bayt xikmad bayahay xikmad baa halkaa ku jirtay aan eega nimba waa dhaweyd gabadh baan mehersanaya iliyo magaceedii waxaan nidhi war waa ina ayo bal magaca aabeed iyo deekeeda iyo kii awowgeed sheego nuuraa la yidhaah buuri halkaasuu dhaafin waayay awal waxa la samayn jiray inata aabaheed iyo macooydeed iyo awowgeed iyo abtigeed intaasaa la sahmin jiray waxa la odhan jiray awowgeed waa sidee aabaheed waa sidee hooyadeed waa sidee hidaraac wax la yiraahdaa jiray dhinaca dhaqanka Soomaalida waxa ku jiray martisoorka taas oo ay Soomaalidu dhaqankii hore ee sooyaalka ay aad u qiimeyn jirtay sidii ay isku martisoori jirtay Soomaalidu iyo qiimaha ay martidu lahayd oo mar kale uu ka sheekaynayo Caaqil Ibraahim aw Maxamed Riiraash xitaa martida xikmad lahaydoo martida reerka martida lagu xumeeyo waxa la oran jiray war nimanka waa reerkaasi reer ma aha la oran jiray nin baa reeruhu yidhi habeenkii baa dee waa la sooriyey aroortiina si ay noqotayba waa la sooriyey waayo dee wuu qureec waayay afur baa la oran jiray waaga hore naaf Soomaalka qureec halkan imika laga yiraahdo waa Carabi afur baa la oran jiray dee waa la waraystay ilaa reeraha la jitaabina waa la waraystay walba reer halkeed xalay u hootay reer hebel dee bal ka warramaye magaladii xalay baan sheegay mise godabtiisa ku ilaa xalay in wax cunay buu dadka u sheegaya waa xikmad waa la garanaya war ma godabtii magaladii xalay baan sheegay mise godabtiisa ku halkaas oo warkii ku dhamaaday waxaad soo hadal qaaday dhinaca martisoorka inay Soomaalidu aad ugu wanaagsanay dadka martida dhaqan ahaan waa la soo dhaweyn jiray oo Soomaalidu martisoorka way lahayd ama dadka martida sidee loo muunayn jiray ee loo wanaajin jiray waxa loo muunayn jiray martida waxa loo muunayn jiray waa loo loogi jiray wamba loo qala jiray aan kuwan hayno wanankii qiimaha lahaay baa loo qali jiray barida la raacin jiray qolada loo loogay wanka hadii barida laga reebo loogaasi wax hirgalay muu hayn niman baa bari cilaaq uga reebay baridii faanusna ma jirin war baridii maxaad uga reebteen tan ergadii way ka xishootay halkii been laga keenay looga ee Suuriyada laga keenay iyo halkay fadhiyeen dhexdoodii buu dab ku ileeyay waxa uu la yiri war maxaad doonaysaa adidin kale idinka yimid annagana aan soo gaarin baa doonayaa waa la qabto kolka horeba cilaaq baa looga rogo dee waa loo geeyay xaaladu saasay ahayd gabadha la kufsado ama la dilo ama la dhibaateeyo dhaqanka hore Soomaalidu xukunka ka yaalay muxuu ahaan jiray saddex bay ahaayeen kufsigu saddex buu kala bixi jiray ina tayare kacaanka ama damacda la oran jiray oo xukunkeedu uu adkaa damacda la oran jiray kolkay dhooriga dhaaftay damacda la oran jiray xukunkeedu ma darbo ina tagashaantida xoogaysata jara dheer baa la oran jiray oo halka cilaaq ba soo galaysa la oran jiray xukunkeedu khafiif buu halka gabadha ina ka sidata iyo ina taama damacdadu halka ugu dambeeya kiisku oodmay hayn qolabana dhaqan bay lahayd halka kiisku oodmay labadaasi ahaayeen jara dheerna waa la khafiifin jiray gashaanti isku tumatay oo xoogan markay tahay xaaladaasi sidaas ay ahayd marka ma geel baa laga xukumi jiray oo xukunka ka yaalay geel buu ahaa
ninka maxaa lagu xukumi jiray waxa ku kaca falka noocaas oo kale ah sameeyo sooyaalka hore ee dhaqanka Soomaalida geel baa lagu xukumi jiray shan halaad u yartahay haday inay sidato ama madamacda ay tahay oo ina taayireen leexsaneen iyadu hamada lahayn haday tahay waa siyaasad oran jiray laakiin jara dheer markay tahay waa laga tashan jiray oo maxaa roon baa la oran jiray oo ina kayna tagtaa waa loo dhisi jiray halka cilaaq baa timado dawayar cilaaqatay baa la oran jiray moogtahay aqal bahalka ku jiro saasay kala ahay gabadh nin u doonan ama nin guursaday oo uu ka raagay nin kale ma damci jiray hadduu damcasir maxaa ka ooli jiray ee xeer ahaa waxa ka ooli jiray inato naafta haday mehersan tahay konton halaad bay ahayd konton bay ahayd hadduu ninku naaf mehersan waa guursanaya ide guurma jire aw fariga xumaayo hadday doonan tahay uu guursadana 25 halaad bay ahayd waa lagu kala qaatay dagaankana joognaba lagu kala qaatay saasay ahayd iyana waxa kale oo dhacday meel laga cabo iyay gabadh iyo nin gabadh baa qaylisay oo nin baa ay kufsaday bay tir way qaylisay ilaahayna kuma oga niman ogayno oo iyagu ogayna meel buu ku jiraa waa la isku yimi hadalkii buu la sugay ina tani waa xaalkii dhig baa leeyahay warana halka Allah dhigay ina ta ninka may ka ooyday mise way u ooyday ku daraysaa muuri ina tu ninka may ka ooyday mise way u ooyday ana halka joogay uma dhawaanin waar way u ooyday ina ta ninka siiyay way u ooyday siiyay dhaqamadii hore ayadoo waa xikmad weeyaan oo dhaqamadii hore ahay irga meel u socota oo nabadayn u socota oo la dhibaateeyo dhaqanka iyo xeerka Soomaalida uga yaalay waqtiga hore muxuu ahaan jiray sidaan u haysto saddexda sidaan imika dawladaha waaweyn ee la sheegay dadkii hore ka qiimo badnaayo dadkan wada jaarka way dagaal baa mar soo wada ya soo maray waayadii dhaxdii qarni ka hor waa la isku yimid dagaalkii kolkuu dhacay waa la isku yimid waxa la yiri dagaal muxuu noo qabanayaa waxba warsoo afar qolo ma yihiin oo inta ma yihiin ha dagaalka nabad sallo waaga la yiraahdo la xiray nabad sallo wiiba loo bixiyay waa la xiray waxa la yiri cidii wax keenta saddexda kala ka dhana nabad iyo caana lagu hirgalayo qarni iyo googo baa lagu dhamaystay dagaalkaas oo keenay u dambeeyay horteed waa kisida nabad iyo caanaha lagu galay marka wax la kala dilo waxa lagu sameeyay jiray gabdha la kala dooni jiray waxa la oran jiray meesha xijiri taala xabaa la dhigaa feerkaan ninka laga dilay ama labada laga dilay gabdha la siin jiray sidaas lagu qaboojin jiray kolka gabdhaha la isasiiyo halkaas dabku ku baqti jiray cilmiga ilaahayna uu raadi jiray sidaas ay hay xeerkaasi marka lagu dhaqmo ee gabdha la isasiiyo waxaad moodaa in dib haddana dagaalku uga soo kacdoomayo maxaa sababay baa sileedahay markan eega mise kuwii hore inta wax ka soo noqdeen maba garanayo dadku aqlina cilmi ma lahayn waxna ma qorin waxna ma akhriin haddana ilaahay bay u dhawaayay dadka istilayay waxa ay ku hadlaan dabbu haan jiray halka wax ka soo noqon jiray ma jirin saasay ahayd marka hore eega waxa soo kacdoomaya dadka iimaankii baa qoormaan u malaynaya oo garashadii baa ayaan sax ahayn oo dagaaladan iyo dhiigana mala wax keenay tooy marka la dhaartay waxaad arkaysaa leeyahay naadar maxay dhaartu sheegi leeyahay arkaysaa fariido loo dhaarto waxaad arkaysaa wixii ay ku dhaarteen hadana berri waxay ka dhaarteen hadana berri galaya waa de kolka iyo eegaba ilaahay baa iskala shaqada reerka ama ergada la dhaariyo ama reerka dhaarta maxaa ku dhacaya la oran jiray dhaqan ahaan waaga hore waxa la oran jiray ila aaminsanaa marka waxa la oran jiray waryaa war tolka dhaarta weyneedo dhagartaba ka weyneedo mahmaadu waxa ay tolka war dhagar u soo hay dhaarta u soo hay baa la oran jiray mabaqadi jirin reerka wax dila qarsada
burbur iyo baababa ku dhici jiray lama balaaya ku dhici jirtay marka kolkuu kala badh marayo oran jiray waariyaahay waxaasan sameeyay nagu soo gurmado abka naga baqtiyo waagii caynka ahayd ban waxa galay waar qoladii noogu yaro nasabata bixiyaa loo oran jiray sidaasay haydo dhaartu ma bixi jiray waa la isku sadqaysan jiray halkaas oo nabadii caano waxaas la raadin jiray haweenku waxay kamid ahaayeen kuwa dagaalada qaboojiya ama se lagu kala dego waayada hore sidoo ahaa dhaqanka haweenkaasi marka haweenka lagu kala dejinayay ama haweenku ay xalka ka qayb qaadan jireen qaab nooceeyo ah islaam baa keedii la dilay labadii qabiile ni qoladii wax dishay iyo qoladii laga dilay baa isku la kacay qola inay dhaxaad ka ahaatay la wadayna laba wajiibay noqotay islaantii kala dilay dhashay baa ergadii u tagtay labadii col dhexdooda u tagtay waxay tiri waryaada kaygii inaan ka sabra hadaa doonaysaan colka kala fura hadaan raaca doonaysaan colka kala furinaarana kaygii hadaan ka sabra doonay kala dhaqaaqay waa qof dumar waxaas sidii baa lagu kala dhaqaaq waa ilhaande wax qof dumar lagu sheegi karo waa cilmi ilaahay waana arkaytaan markan haweenka la isku guurinayaan qayb bay ka ahayd miya guurku soo mu ahayn wuxuu ahaa waxa la oran jiray xigmad buu lahaayo waa qiimo lahaayo waa dalka lagu daaqi jirayo biyaha lagu cabbi jirayo waxa ergada ma garanaysaa la is aqbali jirayo habluhum ahmiyad weyn bay ugu fadhiyeen nabada qabiilada ahmiyad weyn bay ugu fadhiyeen ayay ugu fadhiyeen waqtiga hore dhaqan ahaan waxa la oran jiray Soomaalidu sokeeyuhu isma guursan jirin laakiin si inta kale fog baa is guursan jirtay dhaqanka saas ahaa xigmadda ku jirtay maxay ahaan jirtay xigmadda ku jirtay waxay ahaan jirtay waxaan imika la helay bay ahaan jirtay inaka waa loo yeerad bixinayay wuxuu sameeyay waxa loo dhisi jiray aqalad labada dhaban qabsataa loo dhisi jiray sidaasuu reerku ku ahaan jiray markay aqalkaasi dawaka nabadiya caanaha aqalka qiimaha leh yaradka la qaatay sharafta leh eega waxaad arkaysaa reeruhu aqaladii kama muuqdaan ninkii reerka uu ka guursada aqalka looga dhisayay hooyadii buu dib ugu soo noqday haday shan yihiin hooyadii buu dib ugu soo noqday haday laba yihiin hooyadii buu dib ugu soo noqday aqalkii odaygu meesha uu ka baxay hooyadood waaga horena laba aqal wada yaalo wada qurux badan bay haan jireen waxaan soo gaarnay aqal wada yaalo qurux badan bay haan jireen aqalkii inamada dila aqalkii odayga godaca uu imika ku jira odaygii waa ka goormuu reerka u sii deyn jiray gacanta oo odaygu noqon jiray oday yani hawlgaba odayga imika waxa la yiraahaa kullay gaalada waa 60 kabag way ku fadhiisisaa la yiraahaa taariikhdeena anagu waxa kolka meelaha 70 ama 80 buu odaygu jiraa la yiraaho imika waaba la yar farafareeya waxa la yiraahdaa ninkan waa expired baa la yiraahaa waaga hore markuu ninku yahay 60 kan markuu yahay ilaa 110 muuxsi ma lahayn hadalkiisuna isma dhaafay isaga talin jiray isaga intuu doonaha leegaado isagu odaygu meesha ka baxo ilaa odaygii wareer kuma dhicin isbedel kuma dhicin nuqsa guur male waa sidiisii odaygu maalintuu meesha ka baxo ama xanuunadan imikee macaanki iyo waxani ma jirayna aduu ama xanuun daashaday oo aw jilcay oo dhulka u dhacay ku dhaca maahine intuu nool yahay caafimaad qabo arinta uma sii dayn jirin odaygaan baa talinay waxa ku talinayna waxay ahayd wax dhaxal galaho anfaca ummadda bay ahayd waa ka intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada Boorama aynan ku soo qaadanay guurka iyo sooyaalkii dhaqanka hore ee Soomaalida waxay noogu martay Caaqil Ibraahim Aw Maxamed Riiraash oo kamid ah uqaasha dhaqan yaqaanka ah ee ku nool gobolka Awdal waxa barnaamijkeedii soo jeedinayay iskugu naakii soo dubariday anigoo ah Haashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa saas iyo nabadgelyo
waa hagaaga dhegaystayaal wariyahayaga xaashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka magaalada boorama noogu soo diyaariyay aad buu mahadsan yahay markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur mahadsanid shirwac dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaaro ka tirsan koobka lagu magacaabo Copa del Rey ee dalka Spain ayaa xalay dhacay kooxda Real Madrid ayaa u gudubtay wareegga 16 ee tartankan kadib markii ay laba lug oo ay la ciyaartay kooxda Melilla ay kaga badisay 10 gool ciyaartii lugta labaad oo ka dhacday magaalada Madrid xalay Real waxay ku badisay 6 gool iyo gool Marco Asensio ayaa laba kamid ah goolashaasi dhaliyay ciyaaraha kale kooxda Real Betis ayaa iyana u gudubtay wareegga 16 ka gadaal markii 4 gool iyo eber ku qabatay kooxda Racing Santander Sporting Gijón 2 gool iyo 2 gool ayay isla dhaaf waayeen kooxda Eibar hase yeeshee Sporting ayaa u gudubtay wareegga 16 sidaas isla mid ah Levante ayaa iyana u gudubtay wareegga xiga ee tartanka Copa del Rey markii 2 gool iyo eber ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Lugo horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa sabtida kulamo xiiso leh ay jiri doonaan kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaana ah ciyaarta toddobaadkan isha lagu hayn doono kooxda Manchester City iyada ayaa horyaalka hadda hogaaminaysa halka kooxda Chelsea-na ay ku jirto kaalinta afraad ee horyaalka Premier League ciyaaraha kale ee isha lagu hayo toddobaadkan horyaalka Ingiriiska waxaa kamid ah kulanka dhexmari doona habeen dambe kooxaha Tottenham iyo Leicester City kooxda Arsenal waxay la ciyaari doontaa Huddersfield halka naadiga Manchester United ay booqan doonto kooxda kubadda cagta ee Fulham oo kamid ah kooxaha heer dhaxaadka ah dhinaca Talyaaniga ee Serie A ciyaarta dadka ay wada sugayaan ayaa waxa ay dhici doontaa hadda waxana ay dhexmari doontaa kooxaha Inter Milan iyo Juventus ciyaarta lagu magacaabo Derby d'Italia birina waxaa dhici doona 3 kulan Roma waxa ay aadi doontaa kooxda Cagliari halka Napoli ay la ciyaari doonto Frosinone Lazio iyo Sampdoria ayaa iyana fooda isdari doono dhinaca Spain La Liga kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Espanyol ayaa kamid ah ciyaaraha la sugayo sabtida Villarreal waxa ay la ciyaari doontaa Celta Vigo Valencia iyo Sevilla ayaa is arki doona Sevilla iyada ayaa ku jirta booska labaad hal dhibic ayay ka hooseysaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo ku jirta kaalinta koowaad Atletico de Madrid oo ku jirta kaalinta saddexaad ee horyaalka waxay la ciyaari doontaa kooxda Deportivo Alaves dhageystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha inala socotiinaya markana dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu jalleecno waxa aynu annaga iyo idinkuba aynu ku wada nasan doonaa heesta sayrukh iyo weliba maryam sheekh nuur maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sidiqigu dhex galay muuxusada rigayda sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sidiqigu dhex galay muuxusada rigayga tegay waxaan silsiliyuun aytuu balad ii sawiray muxuu
sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexmiyu imiray maxan soofan riyada maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexmiyu imiray maxan soofan riyada waxaan samadiyo hawada cayduu sawd iiga baxay ad sidii sayruuqu kacay maxan samadiyo hawada cayduu sawd iiga baxay ad sidii sayruuqu kacay sal iyo baar caashaqow malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine xilliga ha iseejinine salaamaad baan ku yiri waxa ay ka mid ahayd ereyadaasi heesta sayruuq iyo fanaanada codka macaan ee maryan sheekh nuur waxaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaanu ku dhaafeynaa sidaa iyo duhur wanaagsan xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi